madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa dhowaan ku dhawaaqay xukuumaddiisa cusub. Golaha wasiirada cusub ayaa ka kooban 48 xubnood, kuwaasoo badankoodu ka tirsan yihiin xisbiga wadani. Xukuumaddan cusub ayaa markii ugu horreysay ka hadashay heshiiskii dhowaan ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, kaasoo dhex maray madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Afhayeenka xisbiga wadani Maxamed Faarax Cabdi ayaa sheegay in heshiiskaasi aanu khuseyn Somaliland maadaama oo ay tahay dal madax bannaan. Sidoo kale afhayeenka ayaa ka hadlay qorshayaasha xukuumadda cusub ee 100 maalmood ee ugu horreeya, isaga oo xusay in mudnaanta la siin doono nabadeynta gobollada bariga iyo horumarinta caafimaadka iyo dhismaha waddooyinka. Waxaa xusid mudan in xukuumadda cusub ay wajahdo caqabado ay ka mid yihiin hirgelinta baahiyaha bulshada. Dadka reer Somaliland ayaa si dhow ula socon doona tallaabooyinka ay qaado xukuumaddan cusub iyo sida ay u fuliso ballanqaadyadeeda. Warbixintan waxaa idinla socodsiinayay Khalid Baashe Waare.